ku soo dhawaada qaybtii afraad ee qisadii la magac baxday ilmadii iyo xaaska waxaan inaga socodsiin doonaa walaalkii Siraaj Cumar oo Cabdilaahi Cabdiqani oo xaaladiisa caafimaad liidato hasla marhaantana loo kala saari laayahay dhimasho iyo nolol ayaa waxa loo qaaday cusbitaalka. Cabdiqani waxa uu ku baaqayay oo ay dhakhaatiirtii la yaabeen eriyadan oo ahaa nimco waxaa loo sheegay faamilkiisa Cabdiqani inuu shil galay waxayna soo gaadheen sidii ugu dhaqsaha badan cusbitaalka. dhakhaatiirtii ayaa u sheegay faamiliga Cabdiqani in xaaladiisa caafimaad liidato aanay la tacaalayaan weli, hase ahaatee waqti xaadirkan aanay natiijo sax ah oo ay ku qancaan u sheegi karin faamilka Cabdiqani. waxa uu dhamaaday walwal iyo farbahaar ilaan ilkoodii ay adduunka ugu jeclaayeen baa cusbitaalka ku jira wax xaalad nololeed iyo dhimasho midna loo kala saari laayahay. dhakhtarkii ayaa mar labaad ku soo laabtay faamilkii Cabdiqani wuxuuna u sheegay dhakhtarku in Cabdiqani weli xaaladiisa caafimaad aanay sax ahayn, isla markaana uu ku hadaaqayo magac gabdheed oo ah Nimco. wuxuu dhakhtarkii kula taliyay faamilkii in loo keeno gabadha Nimco oo inagu aynu garanaynahay inay tahay Cabdiqani jacaylkiisii, hase ahaatee dhakhtarku aanay garanaynin Nimco waxay tahay iyo goobta ay joogto. faamilkii Cabdiqani waxay si degdeg ah u baadi goobeen oo ay waceen Nimco oo yidbateedii la liidata. si kastaba ha ahaatee waxa uu soo dhacay Nimco nubaraani garanayn Nimco, hase ahaatee nasiib wanaag waa ay qabatay taleefankii. kadib waxay si degdeg ah loogu sheegay xaaladda Cabdiqani ku sugan yahay oo loo sheegay in uu ku hadaaqayo iyada. horaa loo yidhi ileen qof faciya jacayl lama qarin karaaye. Nimco waxay lowday dhibtii haysatay iyada waxayna u soo booday xagga iyo cusbitaalka iyadoo goob ay ku sugantayna aanan garanayn, welibana tafaaxaydatay isla markaana ordaysa ayaa waxay u soo orday xagga iyo cusbitaalka. Nimco maxaa qabsan doona hohay ruuxu malo jacaylku intuu hirdiyey haraatiyay baanahe sideen uga hawgalaaho. Nimco waxa ay soo ruclaysaa waxay soo gaadhay cusbitaalkii iyadoo qaylinaysa kuna dhawaaqaysa mee Cabdiqani waxaana kaxeeyay dhakhtarkii wuxuuna dulgeeyay Cabdiqani. Nimco waxay indhaheeda ku aragtay Cabdiqani oo ku yaala dhaawacyo aan indhaha lagu hayn karin. Nimco waxay kaloo ay maqashay Cabdiqani oo weli ku hadaaqaya iyada oo ay indhihiisa ilmo ka socoto, waxayna ku dhegtay Cabdiqani Nimco iyadoo ku leh noloshayda adiga ayaa leh xabiibi, hay cidlaynin, noloshu la'aanta dhadhan ma laha, anigu adiga cid aan ahayn farxad kama heli karo, noloshu adiga la'aanta dhadhan ma laha, waan ku baryaa boqorkaygii dunidan haygu cidlaynin, adiga la'aanta ma noolaan karo xabiibi. jacaylku dhadhan macaana. Cabdiqani ayaa indhaha kala qaaday ileen waa naf jacayl haye oo waxa uu dareemay in agtiisa joogto Nimco oo ahayd qofkii uu dunida ugu jeclaa. markii uu indhaha kala qaaday Cabdiqani waxa uu arkay Nimco oo laabta kaga jirta oo ooyeysa. Cabdiqani waxa uu ilaaway dhaawacyada ku yaala jirkiisa ileen wuxuu arkaya qof uu jecel yahay wuxuuna la farxad ooyay jacaylkiisa dartii. alla noloshu macaana markaad haysato qofka dunida aad ugu jeceshahay. horaa loo yidhi jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecel adoo jecel waxay tahay jannoo kale. Cabdiqani ayaa waxa uu Nimco ku yidhi isagoo istirqinaya, Nimco iga raali noqo, waxaan kuu ballan qaadayaa in aan noloshaada mar dambe aanan ciriiri kaana fogaanayn marnaba. ama samriye ku soo noqde habibi waan kugu gafay ku jeernaale noqo. ama samriye ku soo noqde habibi waan kugu gafay ku jeernaale noqo. qaybta shanaad ee qisadan la magac baxday ilmadii iyo xaaska channelkeena Nadiir Buux. markasta ku xidhnow channelkeena oo saar subscribe gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada.